waxaana wanaagsan mar kale cashirkeena afraadna waxaan ku baranaynaa toolka ugu horeeya toolbarskii aan hore usoo sharaxnay oo ahaa qaybta marka aad wax samaynayso aad ka maarmi doonin. toolka ugu horeeya waxaa la yiraahdaa isla magaca ayuu wataa waxaa la yiraahdaa move tool. waxaana taa macnaheedu ay tahay in toolkan aadan uga maarmi doonin wax walba oo aad rabto inaad dhaqaajiso. tusaale ahaan laba sawir baa isbarbar taala, mid baa rabtaa inaad soo dhaweyso, kan kale ku dhajiso, waa halka aad isticmaali doonto. qaybta ugu horeysa ee ay toolbarka aan ku baranayno waa qaybta u koreysa oo ah qaybtaas leh falaaraha afarta jiho ujeeda, labada dhinac iyo kor iyo hoos. qayb kasta oo ka mid ah qaybahan waxaa ku hoos jira qaybo kale, waxaana ku garan kartaa gantaas yar ee meesha ka muuqata waxay muujinaysaa in wax kale ay ku hoos jiraan. sidaa daraaddeed marka hore aan qaybta koowaad ku dhufanno. haddii aan rabno inaan qaybta ku hoos jirta aan soo saarnana ganta ayaan tagaynaa, kadibna farta ayaan ku qabanaynaa. waxaa soo baxaya labadaas qaybood. waxaan rabaa labadaas qaybood waxa loo kala isticmaalo inaan cashirkan ku baranno. qaybtan waa qaybta ugu muhiimsan oo aad mar kasta isticmaali doonto, sababtoo ah waxaa loogu talagalay in lagu dhaqdhaqaajiyo waxa aad markaad qabanayso. haddii aan rabo inaan dhaqaajiyo kalarkan ama midabkan, amaba aan midab kale meesha soo dhigto kadibna aan caddaan ka dhigo. haddii aan rabo inaan dhaqaajiyo midabkan ama qaybtan aan dhaqdhaqaajiyo, mar kasta qaybta aan dhaqaajinaya ayaan dooranayaa, kadibna toolkan ayaan dooranayaa, kadibna sida ujeedo meesha aan rabo ayaan dhigi karaa. marka sidaas ayaa loogu talagalay. waxaa lagu dhaqaajiyaa hadba waxa markaas aad rabto inaad qayb dhigto. wuxuuna ku fiican yahay in marka aad haysato waxyaabo badan oo is-ag yaala inaad midba meel aad rabto inaad dhigto, amaba haddii aad isticmaalayso mastarada, soo jiid mastarada halkan keen, kadibna waxaan rabaa geeskan inaan la simo mastarada geeskeeda. waxaad samaynaysaa waa qabanaysaa, kadibna waad saaraysaa. sida ujeedo waxaad dareemaysaa mar alla markaa u dhaweyso way ku boodaysaa. eeg anigu kuma boodinay, iyadaa automatic ugu boodaysa. soo ma jeedid? way ku boodi. sababtana waxay tahay view markaa ku dhufato qaybtaas ay ku qoran tahay snap weeye sababta keenaysa. haddii aan jagta ka qaado saa ujeedo kuma soo boodayso, sababta waxaan ka qaaday snapkii aan ka qaaday. marka mar walba way habboon tahay inaad iska hubiso in qaybtaas ay ku qoran tahay snapka iyo qaybtaas ay ku qoran tahay extras ay ku qoran tahay, labadaas qayb inay kuu saaran tahay tick inay kuu saaran tahay. hadda markaan u dhaweeyo eeg way ku boodaysaa. iska ogow haddii ay layerka aad dhaqaajinaysaa uu quful saaran yahay, hadda waa furan yahay, haddaan quful saaro tusaale ahaan oo xiro ma dhaqaajin kartid layerkaas. marka taas waa inaad maskaxda ku haysaa. mar kasta waa inaad furtaa waxa aad rabto inaad dhaqaajiso, waa inaad qufulka ka furto deetana aad dhaqaajiso. qaybta kale ee ku hoos jirta maxay tahay? qaybtan naga qari. mar kasta haddaad rabto layerka inaad qariso, ishaas ku ag taalla oo ka horeysa ayaad qarinaysaa. haddii isha aad qariso layerkan wuu qarsoomayaa. haddii isha ay muuqato layerkan wuu muuqanayaa. taas ayaa ka mid ah waxyaabihii aan markii cashirkii kale aan ku baranayn layerka aan ka soo boodnay. hadda ayaadna baratay. mar walba ishaas waa inaad la socotaa. haddii aad rabto inaad qariso isha qari, haddii aad rabto inaad soo saartana isha ku dhufo. qaybta kale ee ku hoos jirta ayaan rabnaa iyadana inaan barano. qaybtan ay ku qoran tahay artboard tool ay ku qoran tahay, macnaheedu waxay tahay tusaale ahaan qaybtan aan soo dooranay oo ah gaduudka waa inagii soo cabiranay, oo cabirkeeda haddaad rabno inaad dib kuu xasuusiyo oo rabto dib inaad u aragto waxaad ku dhufanaysaa image meeshay ku qoran tahay, kadibna waxaad ku dhufanaysaa image size meeshay ku qoran tahay. sida ujeedo 19 20 10 80 weeye, waa intii aan soo samaysanay. sida ujeedana resolutionkii waa 72. haddii marka aan rabno inaan intaa ka yareyno oo markii aan samaysanay kadib ay igu soo dhacday oo iri waxaan iloobay inaan qaybtan yareeyo oo intaa way igu badan tahay aan yareeyo, maxaa samaynaysaa? laba qaab waa samayn kartaa. inaad qaybtan aado image, kadibna aad ku dhufato image size aad ku dhufato, kadib markii qaybtan ay kuu soo baxdana markaas aad wax ka bedesho cabirkii. waa midda kale aad samayn kartaa waa inaad toolkan isticmaasho, deetana kan aad ku dhufato, kadibna aad qaybta aad rabto cabirato. eeg waxa dhacaya
hoos eeg marka mar walba hoostaas waxaa ku qoran sida ujeedo anoon sii daynin mar walba cabir ayaa soo qormaya cabirkaas ayaad ogaanaysaa nooca inta aad rabto hadda wuxuu noqday 19.208 oo balac ah iyo 12.389 dhirir ah laakiin tani pixel ma aha waa inches inchida waxay u taagan tahay inches saas inaad ogaatid way waa sii deynayaa eeg waxa dhacaya cabirkii uu noo yaraaday